ذاك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأئمة الهدى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتم wanaagsan idin haantiin meel kasta joogtaan, waxaan idin rajaynayaa nabad qabtaan, caafimaad qabtaan. inteena xanuunsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad sariic ha siiyo. inteena nabad qabtaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabad qabka iyo caafimaadka haynugu wado kuwii ku shukriya ku mahadnaqan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga dhigo. sidaan ku balansanayn insha Allah ta'ala dadkan waxaan soo qaadaynaa taxaniheenii afwan taariikhul Andalus aynu magac darnay. waxaan soo qaadanay toddobaadkii hore hordhac kooban oo ka bixino taariikhdu maxay tahay, islaamka iyo taariikhda, muhiimadda taariikhda iyo dunida kale taariikhda say cinayada u siisay iyo sida ay uga warqabtay iyo sida ay u ilaalisay. waxaan kaloo ka waranay Soomaalida iyo taariikhda, Soomaalidu taariikhdiisa isku yihiin. waxaan kaloo ka waranay ilbaxnimadu maxay tahay, waxaan kaloo ka waranay halbeega ugu wanaagsan ee ilbaxnimada. insha Allah ta'ala toddobaadkan waxaan ka warrami doonaa, waxaan bilaabi doonaa xalqadii koowaad ama xalqadii labaad noqonaysa mid ka mid ah taariikhihii ugu facaweynaa, ugu horumarsanaa, ugu wanaagsanaa dunida soo mara, islaamka kaliya ma aha dunida soo mara. waxaan ka warramaynaa taariikh ay adag tahay ka sheekeynteedu, ka warrankeedu waa aad iyo aad u adkaanayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligii iyo dheeraadkii waxaynu ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu nagu guuleeyo inaan dhamaystirno. waa taariikh marna ay fududahay in laga warramo, marna ay adag tahay. mar way fududahay oo marka la daraasaynayo oo la akhrisanayo way fududahay oo loo akhrisanayo inaad kaliya akhrisatid. marka la daraasaynayo laakiin ay tiin waxaan maleynaya adag tahay oo meelaha qaar inaad isdul istaagtid, meelaha qaar inaad wadcigaaga iyo waaqicaaga inaad ku dabaqtid oo uga dheegatid aad u baahanaysid. anyway adigu insha Allah ta'ala waxaan ku tala jirnaa inaynu maalin kasta oo jimca ah ama sabti ah inaynu soo gelino barteena YouTube-ka, inaynu soo gelino taariikhdaas. insha Allah ta'ala waxaanu ka warrami doonaa xalqadeennan halkee bay dhacdaa Andalus. soo kale waxaan ka warrami doonaa Andalus iyo dadkii deganaa Andalus, magaca Andalus sidoo ku baxay iyo dadkii deganaa islaamka ka hor intaan islaamka furan. waxaan kaloo ka warrami doonaa maxaa laga kororsanayaa dadkaas iyo dadkii meesha deganaa. soo kale waxaan ka warrami doonaa dawladihii ku hareereysnaa Andalus, dawladihii ku hareereysnaa wadcigaas ay boqorada ay ku taaleen Andalus, dawladihii ku hareereysnaa iyo qaabkay ahaayeen iyo magacyadoodii baan ka warrami doonaa. waxaan kaloo ka warrami doonaa qaabkii Andalus loo furtay iyo waxyaabihii ka horreeyay. halkee bay dhacdaa Andalus? culimadu waxay tilmaamaan Andalus inay tahay murabbac, yacni afar geesood inay tahay. waxay dhacdaa koonfurta hoose ee Yurub bay dhacdaa. marka waxay ka tirsan tahay imka qaaradan Yurub bay ka tirsan tahay. waa koonfurtan hoose wadamadan loo yaqaano Spain iyo Portugal. wadankeena Portugal ay ku yaala galbeedka Yurub, galbeedka koonfur galbeed ku yaala Yurub ku yaala, iyo wadankan Spain ee weyn loo yaqaano isna ku yaala koonfurta ku yaala Yurub. xageena markaan joogno Afrika, markaan joognana waxay dhacdaa waqooyiga Afrika. waxay tilmaamaan culimadu inay tahay jasiirad lamood oo waayo waxay yiraahdaan markay afar geesood tahay, 3 geesood oo kamid ah waxa dhaca bad baa ka xigta, halka hal gees oo waqooyi galbeed, waqooyi bari baan leeyahay ay xuduud ka leeyihiin Faransiiska. halka marka xadka Faransiiska waxa ku yaala buuro aad iyo aad u cufan oo loo yaqaano Jibaalul Baranes. Jibaalul Baranes waa buuro ay taariikhnadu ku tilmaamayaan dhul mareenadu, buuro iyo ciriiriya oo ay adag tahay in ciidanka infantry-ga ay maraan. walidaalka waxay ugu adkaatay muslimiinta inay halka ka gudbaan oo European-ta ka sareysa furtaan. xaggan hoosena waxa ku yaala buuro iyaguna loo yaqaano buurta loo yaqaano Jabal Tariq oo marka madiiqo Jabal Tariq la soo dhaafo. madiiqo Jabal Tariq waa laag yar oo 13 kiiloomitir u dhaxaysa
magaaladan ama sabta ama Afrika cidhifkeeda ilaa iyo isku xidha Yurub waa dhul bad ah oo ilaa 13 kilomitir culimadu ku tilmaamaan waa dhul buuralaya oo buurahan idin sheegaya waxa kamid ah Jibaalu Thalj baa kamid ah waa dhul badankeedu ay jasiirada yihiin oo aad iyo aad u qurux badan waxa kamid ah Jasiiratul Khadra waxa kamid ah magaalooyin far badan oo dhulkan ay ka baxday marka saliida loo yaqaano saliidan qumbaha ay ka baxdo khayraad far badan bay leedahay khayraad far badan ayay leedahay culimadu tilmaamaan Andalus magaca Andalus qaabkee uu ka baxay dadka Andalusna deganaayeen nooc ma ahayn dad nooc ma ahayn qabiilka Andalus deganaa asalka u lahaa culimadu waxay tilmaamaan iyo taariikhdu waxay tilmaamaan مثلا راقب سرجاني وكلا يا ابن عثير وكلا waxay tilmaamaan waxa degi jiray Andalus waxa degi jiray qabiilo Xamajiyiin ah oo aad u dhaqanka kan oo aad u dhaqan qalafsan oo burcada baa degnaan jiray bilaadaan oo ka yimid asalkooda ahaayeen bari Aasiya kadib waxay degeen Scandinavian markay degeen way ka soo guureen aakhirkii waxay degeen dhulkaas bay degeen Andalus imka lagu magacaabo dhulka mudday ku noolaayeen degnaayeen islaamka intaanu furan markaas dadkaas marka dhaqankoodu wuxuu ahaa magacooda wuxuu ahaa magacoodu waxa loo yaqaan Vandal kadib waxa loo bixiyay luqadii Laatiiniga waxa loogu bixiyay Vandalism kadib Carabi luqadii kelmadii waxay isbedelaysaa Carabi oo Andalus bay noqotay ilaa xataa laana waxa loo yaqaanaa Andalusia loo yaqaanaa Andalusia baa loo yaqaanaa Ingiliishaan Carabina dawladul waxa loo yaqaanaa Ardul Andalus baa loo yaqaanaa ama Jasiiratul Andalus dadka marka dadka deganaa waxa ay dadkaas loo yaqaano waxa ka yimid wadada wataniyiin ay ahayn marka xagga jaanibka cibaadada la eego dhaqanka iyo suluuga waxa ay dad aad iyo aad uga dambeeya dadka taariikhanadu waxyaabo qariib ay soo qalayaan marka qaarkood sanadkii laba jeer meelan jireen sabool dad sabool qoto daruga la dagaalamay marka qaarkood dhirta ma cuna adu xaalada adag baa laga sheegaa dhulkaas dadkaas qabiilada waxa la degi jiray oo xukumi jiray oo qabiilo loo yaqaano Gawdiyiin Gawtist loo yaqaano luqadda Ingiriiska waxa karimaaye loo yaqaano ay ahaayeen Gawdiyiintu marka waxay ahaayeen asalkoodu waxay nasaaro oo nasaaradii taabacsanay oo ruum bay ahaayeen waxay ahaayeen dawlad sida deemka ba jirta marka kapitalismku yahay waxay inta waxay sata un baa dharki jirtay walidaalka ba muslimiinta marka ay furteen waxay ku furteen si sariic ah bay ku furteen Andalus waxyaabo u saalay waxa kamid ah dadku ma ahayn dad waxay ahayn dad baahi u qaba inay dawlad xoog weyn oo ilbaxnimo inay ka hana qaado baahi bay u qabeen way saboolna way ahaayeen ilbaxnimo aqoon dheeg kasta waxay ka ahaayeen sabool bay ka ahaayeen waxyaabo laga kororsanayo waxa kamid ah ummaddu hadii ay ila wax loo baahay taariikhda in la dul istaagay ummaddu hadii ay weydo xukun caadila ama ay weydo xukuumad danahooda ilaalisa wax kasta waa u baylaha cadow kasta waa u baylaha dawladihii ku hareereysna Andalus laba dawladood baa ugu waaweyn dawladdu ku hareereysna Andalus waa dawladda Umawiya iyo dawladda Ruum dawladii Ruum iyada wax ku jirtay markaa Andalus oo Gawdiyiintu waxay ahaayeen qabiilo reer Ruum reer Yurub ay ahaayeen iyaga xukumi jiray maligii ugu dambeeyay boqorkii ugu dambeeyay Qaydasha la oran jiray Qaydasha markii xukunkii laga afkaday loo dariiq leeyahay la wareegay dadkaas xukumi jiray marka Ruum baa waxay u qaybsantay kaniisadda waxay u qaybsantay nasaarada qaybta galbeed iyo qaybta bari Byzantine Empire qaybta loo yaqaanay oo kaniisadii bari ahayd iyo qaybtan Ruum oo Constantinople iyo Yurubinteeda kala degnaa Rome iyo dhulka degnaa adigu saas wadciga noocaas oo ahaa reer Ruum iyo qudoodu waxay ku jireen dark age waxa loogu magac daro usurul bay ku jireen usur aad iyo aad madow bay ku jireen haday noqoto xagga aqoonta haday noqoto xagga ilbaxnimada haday noqoto xagga horumarka haday noqoto xagga dhaqaalaha dheeg walba oo laga eego nolosha waxay ku jireen madow bay ku jireen oo iyaga marka buugagtooda xitaa akhrisanaysid mesela George Sarton oo kala buugan uu qoro kaga waramayo the history of civilization oo kala wuxuu ku tilmaamayaa dark age ku tilmaamayaa waxa muslimiintu dark age ku tilmaamay laakiin iyaga qudooda ku tilmaamay inay ku jireen usurul aswad inay ku jireen usurul wusta usurta loo yaqaano
madow inay ku jireen bay ay tilmaamayaan aduu waxay ahaayeen dad noocaas ah oo ku jiray xaalad noocaas ah xaggan kale dawlad baa ka jirtay ilbaxnimo iyo dawlad awood weyn baa ka jirtay oo dawlad umawiya baa ka jirtay markii la furanayay adigu waxa talinayay oo haystay Marwan Walid ibn Abdul Malik Walid ibn Marwan ibn Abdul Malik ninkii loo oran jiray oo dhalay Marwan ibn Abdul Malik ibn al-Hakam oo dhalay dawlad aad iyo awood weyn bay ahayd dawlad umawiya taariikhyahanada iyo mustashriqiinta iyo shiicadu waxyaabo badan oo abaadiila bay ka sheegaan laakiin anyway adu dawlad bay ahayd khilaafa muslimiina oo aasaasay bilowha asxaabigii rasuulka alayhi salaatu wasalaam Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma oo isaga abihi baa laba nin oo saxaabi ahaayeen kadib markii sanadkii la magac baxay caamul jamaa Xasan uu ku wareejiyay khilaafadii uu ku wareejiyay Muawiya Dimashq baa caasimadoodu ahayd adu dawlad umawiya baa ka tarin jirtay marka dawlad umawiya waxay haysatay ilaa iyo Hindiya bari soo ma wara an-nahr Iraq soo ilaa iyo Maghrib laga imanaya Maghrib waxa la isku oran jiray dawladihii Liibiya Tunis Algeria Jazaa'ir dawladahaas la isku oran jiray Masar markaa kuma jirin muslimiintu waxay horaba ka bilaaween inay furtaan Afrika xilligii khilaafadii muslimiinta khulafaa ar-raashidiinka ay talinayeen Masar bay furteen kadib way socdeen waxay furteen Jazaa'ir Liibiya dhulkaas ay furteen marka guud ahaan dhulkaas oo dhan waxa ka talinayay dawladda muslimiinta ka talinayay marka markay badatay dhulka islaamku markuu farabatay khaliifadii muslimiintuna uu fadhiyo Shaam wuxuu sameystay barasaab marka waxa ka ahaa markii Andalus la furan doono waxaan rabaa inaan wixii kala dhan aan iska dhaafno maadaama waqti badan inaga qaadanayso ishaaraad iyo tilmaam ma ahaani markuu Andalus la furan doono waxa talinayay qaayidkii iyo hogaamiyey lagu magacaabi jiray Musa ibn Nusayr ibn Abdurrahman ibn Yazid abihi Musa wuxuu ahaa isna qudhiisu wuxuu ahaa taabici buu isna ahaa wuxuu ahaa nin dagaalyahana aqoonyahana siyaasi abu ahaa waxa la sheegaa macrakatul Yarmouk ragii ka qayb galay wuxuu ahaa wasiirkii Muawiya xuraasadii Muawiya kamid ahaa ciidanka jeeshku haystay generaalkii boolisku ahaa waa Muuse abihi baan sheegaya Muuse qudhiisu wuxuu ahaa nin isba siyaasiya wuxuu ahaa nin aqoonyahana wuxuu ahaa nin mufakkira wuxuu ahaa nin marka culimadu tilmaamayaan Imam Dhahabi oo kala markay tilmaamayaan iyo Ibn Kathir oo kala markay tilmaamayaan waxa nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqli iyo xikmad iyo garasho Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay waxaana ku tusaysaa garashadiisu dagaalada qaabka uu wajahayay caqabadaha qaabka uu xalinayay sidoo arkayay wadciga yahamigiisa iyo wuxuu ku fikiray baad ka arkaysaa isagoo waxa la sheegaa isagoo 27 jir inuu ku haminayay inuu furto Constantinople 27 iyo wixii ka sareeya isagoo ah Musa ibn Nusayr marka ninka noocaas oo ahaa laba waalid bas ka dhalo labaduba ay laba waalid oo geesiyaal ahayn hooyadii waxa la sheegaa inay tayada qudheed macrakatul Yarmouk ka qayb gashay macrakatul Yarmouk waa macrakadii la galay Khalid bin Walid iyo asxaabada rasuulku ay la galeen waxa la asxaabada rasuulku ay la galeen ilbaxnimadii iyo dawladii Byzantinian Empire ay la galeen marka ma doonaya Yarmouk macrakatul Yarmouk ka sheekeeyo aduu Maghrib waxa ka talinaya barasaab oo ahaa markii ugu dambeysay Musa ibn Nusayr waxa uu marka damcay oo datiyay inuu furto Andalus iyo dhulka badda ka dameeyo inuu furto intaan marka furan Andalus wuxuu arkay dhowr caqabadood oo ka soo horeeyay furashada Andalus bal hadda halka u fiirsada ilaa 4 caqabadood oo midba ta ku sii xigta ay ka sii adag tahay ayaa ka horeeyay furashada Andalus qaabkii uu wajahay Musa ibn Nusayr Andalus saan juqraafiyan isu sameeyay waxa ku taala waqooyiga Afrika waxa u dhaxeeya marka Afrika iyadoo waxa u dhaxeeya badba u dhaxaysa
badda wixii ka soo sokay xaggan xiga waxa loo yaqaanaa waan kulli dawlatul maqrib baa loo yaqaanaa ama maqrib afriqiya baa loo yaqaanaa maqrib waxa markaa ka taliyo loo isaga barsaab u ahaa isaga wixii ka horeeyay waxa furtay Uqba ibn Nafi' taabiciga loo jiray Uqba ibn Nafi' waxyaabaha ay hogaamiyaashiisii isaga la socday dagaalinta khaladaadka galeen waxa kamid ahaa laba khalad oo waaweyn waxay ahayd dadka dhulka degi jiray waxa loo yaqaanaa ma yahayn Arab waxay ahaayeen dad loo yaqaanay qabiilo Alamaziqiya ama Barbar dadkii loo yaqaanay bay ahaayeen dadka barbariyiinta ahi Amaziq tarqayna waxay tilmaamaan ama kelmadda Alamaziq inay ka timid kelmad macnaheedu ay noqonayso adigu luqadooda marka loo eego ninka xorta ah ee wanaagsan ee fiican halka marka laga eego barbar ay hayd ruumiyaanku waxay reer ruum waxa u yaqaaneen oo ay dadka aanay garanayn bay waxay u bixin jireen barbariyiin bay u bixin jireen kadib dadkaas waxay ahaayeen dad say u badnaayeen qabiilo bay ahaayeen aan Arab ahayn marka khaladaadkay galeen waxa kamid ahaa muslimiintu marka ay furteen dagaalo fara badan bay la galeen furashada dhulka arfaad badan bay muslimiintu ka mareen sida macrakatu daatu sawari macrakada la magac baday asxaab fara badan qayb galeen macrakooyin fara badan baa ka dhacay marka muslimiintu adigu way furteen dhulkii markay furteen Uqba ibn Nafi' baa kamid ahaa dadkii quwaadii hogaaminaysay dagaaladaas waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah si sariic ah baa loo furtay dhulka 2 bilood laakiin sidii sariica waxay sababtay laba khalad oo waaweyn labada khalad ee markaa uu hadhow Muuse ibn Nusayr xalinayo weeyaan markuu labada xaliyo ee dhulka Maqrib uu xukumayay istiqraar siyaasi ah iyo xadaarad uu ka hana qaado markaas uu isku dayay inuu markaa ku hamiyo inuu dhulka la furto walidaalka baa waxay tahay dadka muslimiinta inay ku baraarugaan marka hore hadii siyaasadda daaqiliga ah ay wiiqan tahay oo ay daciif oo ay taag daran tahay ma weysan karaysiin siyaasadda khaarijiga inaad ku xoog badatid oo garanaysa awood ku lahaatid walidaalka Muuse ibn Nusayr wuxuu isku dayay bal u fiirso aqliyadiisa garaadkiisa u fiirsiyo fahankiisa labadii khalad ay galeen hogaamiyaashii ka horeeyay inuu xaliyo ko waxay ahaayeen degdeg markay ku furteen inaanay dhabarkooda ilaalin wuxuu isku dayay inuu meeshii qabiilada Amaziq inuu soo dhaweysto ciidanka hogaamiyaashiisa inuu magacaabo waxa kamid ah ciidamada magacaabay markaa ninka furan doona Andalus waa Tariq ibn Ziyad baa kamid ah Tariq ibn Ziyad muu hayn Arab muu hayn sidoo kale Dariif ibn Malik oo haa la taariikhnimada tilmaamay ninkii ugu horeeyay ee adin dhiga dhulka Andalus waxa Dariif ibn Malik oo ciidankii sirdoonka la hogaamin uu diray uu soo amray khaliifka muslimiintu in loo diro Andalus intaan Andalus la furan waxa uu khaliifku u sheegay Muuse inuu ciidan sirdoon u diro marka Dariif ibn Malik baa hogaaminayay ciidankii adigu Muuse ibn Nusayr siyaasadii wuxuu leeyahay inuu Amaziqdii qabiilinkii barbarka inuu soo dhaweysto labo inuu diintii baro saani martaba diintii uga ridooy waayo Uqba ibn Nafi' iyo hogaamiyaashii horeeyay markay furteen dad badan baa diintii dib uga noqday way is urursadeen dagaal bay hadana muslimiinta la galaan waa la furta hadana dagaal bay la galaan hadana waa la furta hadana dagaal bay la galaan yani waxay noqotay xuruub fara badan oo aad iyo aad u adag ayaa waxay dhex martay qabiil Amaziq iyo muslimiintii adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadiisu waxay noqotay in Muuse ibn Nusayr loo magacaabo barsaab looga dhigo walidaalka baa waxay tahay muslimiintu inay ogaadaan hogaamiyaha muslimiintu doorashada qofka ugu haboon iyo marka ugu habooni waa mid kamid ah dakaanimada iyo aqli badnida hogaamiyaha lagu garto maaha qofka siyaasiga aad u dooranaysa barsaab meel uga magacaabaysa inaad qabiil ku xulatid inaad reer ku xigatid waxa weeyaan inaad ku xulatid aqligiisa iyo garaadkiisa iyo sida uu ninkaas ugu qalmo xilkaas khaliifka muslimiinta markuu magacaabay Muuse ibn Nusayr horta amni istiqraariya wuxuu ka dhacay dawlad al-Maqribi waxa ka dhacay amni istiqraariya dadkii barbariinta culimo ugu yaadhay waaweyn oo Madiina iyo Maka iyo Shaam laga keenay iyo Iraq laga keenay diintii baa la baray dadkii waxa la tababaray ciidamo u dhimanaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala kelmadiisa oo jihaadkii baa la baray shariicada islaamka la baray waxa la baray qaabkii dagaalka waxyaabo fara badan baa la baray aqoon yahanay noqdeen
aqoon-yahano markay noqdeen aqoontii ay barteen diinta iyo sharciyada ay si wanaagsan u farbateen ayaa wuxuu bilaabay inuu ciidamadii iyo quwaadii jeeshkan inuu dhiibo si ay u dareemaan mukaafao inaanay carab dhulkan kaliya iska lahayn iyo xuquuqaan iska lahayn dadna waxa sugmay amnigii Maghrib ayaa xasilay kadib Musa ibn Nusayr wuxuu ku hamiyay inuu furto Andalus wuxuu markaa ciidanka u magacaabay hogaamiyihii caanka ahaa ee loo yaqaan Daariq ibn Ziyad oo isna qabiila Lamaziqiya kamid ahaa Daariq ibn Ziyad iminkana Musa ibn Nusayr waxa iyo Daariq ibn Ziyad waxa hortaala caqabadooyin kale caqabadaha waxa kamid ah weligood muslimiintu bad kumay dagaal gelin oo bad intay ka talaabeen xadiga inta laga 13 kilomitir ah wali may gelin sidoo kale doonyo ay ku dagaal galaan ma haystaan haday ma kastagaan dagaal galaan insha Allah taala halqada ku xigta waxaan ku qaadan doonaa qaabkii ay uga gudbeen badda caqabadihii uu xaliyay Musa ibn Nusayr caqabadihii soo wajahay qaabkii uu xaliyay iyo